baraha kala duwan ee bulshada ee dalka Kenya waxaa maalmihii aynu soo dhaafnay aad looga hadalhayay sidoo kalena saddexdii cisho aynu kasoo gudubnay aad u qabsaday warar ku saabsan kor u kac ku yimid kiisaska la xidhiidha dhaca iyo sidoo kale falalka lagu waxyeeleynayo shacabka kuwaasi oo ay geysanayaan burcad iyo sidoo kale dad tuuga ah kuwaasi oo intooda badan ay ku bartilmaameysanayaan waxyaabaha ay dadku sitaan haddii ay noqon lahayd telefoonada qaaliga iyo sidoo kale laabtoobyada iyo qalabka dijitaalka oo ay sitaan ardayda jaamacadaha waxaa naxdin iyo cabsi xoogan ay soo wajahday dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan dalka Kenya kuwaasi oo walaac ka muujinaya falal lagu waxyeeleynayo shacabka oo aad ugu soo badanaya bartamaha caasimadda Nairobi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay kiisaskan la sheegayay in ay ka dhaceen xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada Nairobi iyo goobo caan ah iyada oo ay yar tahay dhaqdhaqaaqa ciidamada booliiska ee la xidhiidha ku lug lahaanshaha amaba in ay gacan ka geystaan joojinta falalkan inkasta oo laamaha ammaanka ay sheegeen in ay isu howlin doonaan sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka lagu waxyeeleynayo shacabka haddaba maalmihii aynu kasoo gudubnay waxaa dood kulul oo baraha bulshada qabsatay aada loogu dhaleeceynayay maamulka madaxweynaha dalkaasi Kenya ee William Ruto kaasi oo la arkaya in uu bartilmaameysanayay ama soo saaray amar ka dhan ah in gebi ahaanba la jabiyo laan u qaabilsaneed waaxda dembi baarista ee DCI-da ee dalkaasi fulinta falalka afduubka oo lagu tuhunsanaa in dad badan oo laga laabsanaa dalkani Kenya oo ehelkooda iyo qaraabadooda badigoob dheer loo soo sheegay kadib in ay gacanta u galeen booliis islamarkaana la dilay inkastoo tani ay ahayd mid baaritaan uu booliiska dalka Kenya ku waday maalmihii aynu kasoo gudubnay ayna jiraan shakhsiyaad loo soo xidhay ku lug lahaanshaha dad la sheegay in ehelkooda ay ka maqan yihiin ilaa imikana lagu tuhunsan yahay maqnaashahooda booliiska gaar ahaan laan la yiraahdo special service unit laantaasi oo u qaabilsaneed adeegyada gaarka kana tirsaneed waaxda dambi baarista ee DCI-da taniya markii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu soo saaray amar meesha looga saarayo laantan gaarka ee waaxda DCI-da ka tirsaneed oo la sheegay in shaqada ugu weyn ay haysay ahayd in markaasi laantaasi loo adeegsanayay fulinta falalka afduubka iyo sidoo kale kiisaska la xiriiro waxyeeleynta shacabka gaar ahaana dadka aanooyin kala duwan iyagu gacanta ugu gelaya booliiska haddii ay noqon lahayd dad markaasi siyaasiyiin ay dadkaasi intooda badan ay iyagu soo adeegsanayeen arrimo noocaas oo kale ah si kastaba haatee waxaa maalmihii aynu kasoo gudubnay aada walaac looga muujinaya koror ku yimid kiisaska la xidhiidha falalka dadka lagu waxyeeleynayo oo burcadda ay aada ugu dhiiranaysay oo islamarkaana bareer cad ay ku qaadayeen shacabka ku dhaqan magaalada Nairobi mid ka mid ah dadka baraha bulshada wax ku qoro ayaa waxa uu soo ku faafiyay barta Facebook qoraal u dhacaya sida tan haddii aad leedahay ehel ama uu qof ku joogo saaxiib ah magaalada Nairobi ama imika uu degan yahay fadlan waxaad kula talisaa in uu taxadar sameeyo sababtoo ah labadii isbuuc aynu kasoo gudubnay wuxuu yiri ma ahayn mid sahlan arintu gaar ahaan dadka ka shaqeeya magaalada Nairobi oo iyagu wajahaya cabsi xoogan oo ku aadan in mar qura la weeraro waxa ay wataan laga xoogo sidoo kalena toori lagu weeraro waxaana uu leeyahay inta u dhaxaysa 4 ilaa 7 kiis oo noocan oo kale ah ayaan goobjoog u ahaa waxaan arkayay buu leeyahay dad isugu jira dhalinyaro dad waaweyn caruur iyo haween oo iyagu midi markaasi lagu weerarayo kuwaasoo qaarkood imika la dhigay cisbitaalada kala duwan gaar ahaana qaybta gurmadka degdega ama adeegyada degdega loo yaqaan ICU-da halkaasina lagula tacaalayo kadib markii waxyeelo ay kasoo gaadhay bartilmaameed si xoogan oo ay ku qaadeen kooxaha burcadda ama tuugada oo waayadan dambe soo rogaal celiyay sidoo kalena bareer cad dadka dil ugu geysanaya meelaha kala duwan ee markaasi beegsiga uu aad ugu badan yahay waa bartamaha caasimadda Nairobi ee CBD-ga loo yaqaano aaga loo yaqaano National Archive dhismahaasi ay ku kaydsan yihiin alaabaha qadiimiga wadooyinka kala duwan sida River Road Fig Tree halka loo yaqaano iyo sidoo kale goobaha markaasi roundabout-ka isgoysyada kala duwan ee ku yaala faras magaalaha Nairobi haddaba shakhsigan oo qoraalkiisa sii wato waxa uu leeyahay
waxaad la socotaan in dadkan tuugada ah ama kooxahan maalin cad ay dadka ku dhacayaan magaalada ayna jirin cid ka hor istaagayso, maadaama qof waliba nafsadiisa u cabsanayo. islamarkaana haddii amardiida aad samayso ama shayga qofka uu kaa doonayo tuuga ah inuu kaa qaato aad isku dayda in aad isku dejiso, durbadiiba waxa uu qaadayaa fal oo waxa uu ku geysanayaa dil, ama waxa uu kugu dhufanayaa midi ama bistoolad ayuu kugu dhufanayaa buu leeyahay. fadlan la wadaag asxaabtaada iyo qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Nairobi buu yiri shakhsigaasi. dhinaca kale qaar kale oo iyaguna baraha bulshada isticmaalo ayaa barta Twitterka soo gelinaya kuna faafinaya qoraallo kala duwan oo u dhacaya sida tan. haddaba bartamaha magaalada Nairobi gaar ahaan halbowlaha waxay noqotay goob aanu amni ahayn ama amnigeedu sugnayn, siiba marka la gaaro xilliyada galbihii. waxa uu leeyahay haddii aad wadato laptop ama aad wadato qalab qaali ah ama lacag aad sidato, fadlan isku day in aad ka taxadarto dhaqdhaqaaqaaga aad yarayso. haddaba jaraa'idada ka soo baxo waddanka Kenya ayaa 24 saacadood ugu dambeeyay aad markaasi u faafinayay islamarkaana usoo daabacayo qoraallo kala duwan oo ku saabsan kiisas xawli ku socda oo la xidhiidha dhac iyo sidoo kale falal lagu waxyeeleynayo shacab iyo faldambiyeedyo kale oo ay fulinayaan kooxaha tuugada ah ee ka howlgala magaalada Nairobi, kuwaasi oo ku dhiiranaya in maalin cad ay dadka ku dhex weeraraan gudaha bartamaha magaalada Nairobi. arrintana waxaa jaraa'idada qaar ay markaasi ku micneeyeen islamarkaana ay sheegeen in ay la xiriirto maadaama waddanka uu ka socdo bartilmaameedsi ama howlgal ka dhan ah booliiska, iyagu lagu eedeynayo inay ku lug leeyihiin falal lagu waxyeeleeyo shacab. iminka booliiska qudhoodu ay dib u guranayaan oo ayna doonaynin inay ku lug yeeshaan in dadka ay ka difaacaan dhaca loo geysanaya, sababtoo ah waxaa jira laamo kala duwan oo u qaabilsan falalka dabagal lagu sameynayo booliiska sida IPOA, laantaasi oo loo soo gaabiyo International Police Oversight Authority ama waax u qaabilsan dabagal iyo kormeer lagu sameynayo howlaha booliiska dalka, taasi oo sheegtay in ay jireen kiisas aad u tiro badan oo booliiska ay geysteen sanadihii ugu dambeeyey 100 ilaa 120 kiis oo afduub iyo sidoo kale dilal sharci darro isugu jira ay la xiriirinayeen in booliiska ay ka fulinayeen. iminkana baaritaan uu ku socdo laamaha kala duwan ee ciidamada booliiska waddanka. haddaba agaasimaha cusub ee waaxda dambi baarista DCI-da Maxamed Amiin, oo nin asal ahaan Soomaali ah islamarkaana kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, ayaa waxa uu sheegay in booliisku uu isku howliyey inuu ka hortago fal walba oo lagu waxyeeleynayo laguna dhibaateynayo shacabka. waxaana uu sheegay in aynan jiri doonin cid dhibano u noqota gacanta burcadda, waxaana uu faray laamaha kala duwan ee booliiska iyo waaxyaha kala duwan in sida ugu dhaqsiyaha badan howlgal ay ka bilaabaan magaalada Nairobi. shalay ahayd markii waaxda ciidamada booliiska waddanka ay soo saareen bayaan ay ku sheegayeen in booliiska dhammaanba ku maqan fasax iyo kuwa markaasi iyagu aanu dareeska booliiska xidhneen intooda badan ay diyaargarow galaan, feejignaan ay sameeyaan, maadaama dhowaan la gelayo fantasiyaha ciidda Christmaska oo dabayaaqada sanad kasta xilli fasaxeedka December oo ah bil inta badan dadka kirishtaanka ay u dabaaldegaan ciidooda masiixiga, inta badan ay kordhaan falalka la xiriira aan yiraahdo falalka lagu dhibaateynayo shacabka ama xatooyada oo dhac loogu geysanayo shacabka. sidaa daraaddeed booliiska waxa ay sheegeen in ay ka hortegi doonaan wax walba oo ay ku qaadato fal walba oo shacab markaasi la doonayo in lagu dhibaateeyo ama xatooyo ka dhana shacab lagu sameeyo. inta ayaan uga baxaya muuqaalkan. subscribe inoo saar janalkan, like garee, la wadaag asxaabtaada. haddii ay jiraan dad adigu aad jeceshahay oo caasimadda Nairobi ku nool, fadlan waxaad u sheegtaa in taxadar ay sameeyaan ayna ka fogaadaan goobaha markaasi lagu bartilmaameysan karo. haddii ay sitaan waxyaabo kala duwan oo qaalina, fadlan waa in guriga ay uga soo tagaan si aanay dhibano ugu noqon arrintaasi.